kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada warka warsida TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah qaramada midoobay oo degniino ka soo saartay weerar ismiidaamin ah oo Muqdisho ay wajahayso maalmaha ciida madaxweyne Farmaajo oo war ka soo saaray musuqmaasuqa baahsan ee ka jira Soomaaliya kuna dhawaaqay isbedel degdeg ah dawladda federaalka Soomaaliya oo diiday inuu dalka yimaado ergeyga midowga Afrika dhawaan uu soo magacaabay Soomaaliya maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada oo walaac xoogan ka muujisay isku dhacyada ka soo cusboonaaday Falastiin iyo Israa'iil intii aad maqasheen daawadayaal waa qodobadii ugu door corona warkayaga haatan ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan qaramada midoobay ayaa fariin degniin ah ka soo saartay weerar ismiidaamin ah oo maalmaha ciida ah ay wajahayso Muqdisho war qoraal oo ka soo baxay qaramada midoobay isla markaana loo soo diray shaqaalaha kala duwan ee qaramada midoobay ka howlgala gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxa la faray inay ka digtoonaadaan weeraro adag oo ismiidaamin ah oo magaalada Muqdisho ay wajahayso isla markaana waxa la tilmaamay in weeraradan la filayo in maalmaha ciida ah Muqdisho ay ka dhacaan qaramada midoobay qoraalkeeda ayaa waxa lagu xusay in dagaalamayaasha al-shabaab ay maalmaha ciida ah la filayo in weeraro ismiidaamin ay ka geystaan gudaha Muqdisho iyadoo sidoo kale tilmaantay in magaalada Muqdisho loo soo diray ku dhawaad 100 qofood oo xiran jaakadaha ismiidaaminta ah kuwaas oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa waxaana la tilmaamay in loo soo diray gudaha magaalada Muqdisho isla markaana al-shabaab ay doonayaan in weeraro qorshaysan ay ka fuliyaan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho qaramada midoobay ayaa si gaar ah uga soo saartay goobo ay adag tahay oo degniin adag ay ka soo saartay isla markaana la calaamadeeyay oo ay tilmaantay in bartilmaameedku uu ku wajahan yahay goobaha la bartilmaameedsan karo ayaa waxa ay ku sheegtay dhamaanba meelaha ay dadku ku badan yihiin gaar ahaanna meelaha ay ku kulmayaan saraakiisha ciidamada dawladda siyaasiyiinta iyo sidoo kale xubnaha dawladda federaalka Soomaaliya ee ugu sareeya waxaana sidoo kale ay degniinta qaramada midoobay ay u jeedisay shaqaalaheeda ay tilmaantay in la bartilmaameedsan karo goobo halis ah oo ay qayb ka tahay goobo aan la filayn sida hoteelada maqaaxiyada masaajidada wadooyinka xeebaha dalka gaar ahaan xeebta Liido iyo meel kasto ay suurtagal tahay in ay markaasi dadku isugu yimaadaan oo ay tilmaantay in weeraradan bartilmaameedka koobaad uu yahay qaramada midoobay ayaa shaqaalaheeda waxa ay sidoo kale ugu digtay in maalmaha ciida ah ay tagaan goobaha loogu dabaaldegayo ciida iyadoo ka baqdin qabta in weeraradaasi lala beegsado madaxweyne Farmaajo ayaa war ka soo saaray musuqmaasuqa baahsan ee dalka ka jira waxaana uu ku dhawaaqay isbedel degdeg ah inay dawladdu qaadayso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda dalka ka jirta waxaana sidoo kale uu madaxweynuhu hambaliyo u jeediyay dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo ku aadan maalmaha ciida waxaana uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu soo hadal qaaday arrimo ku saabsan xaaladda amni ee dalka iyo sidoo kale xaaladaha kale ee dalka ka jira oo ay kamid tahay musuqmaasuq baahsan waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ugu baaqay dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay isku caawiyaan isla markaana iska kaashadaan arrimaha dhibaatooyinka ay ka taagan yihiin ee fatahaadaha roobabka iyo sidoo kale arrimaha kale ee cakiran ee dalka ka jira waxaana sidoo kale uu ku bogaadiyay inay ciidamada ammaanka kala qayb qaataan sugidda amniga isagoo sidoo kale ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ammaanka ku bogaadiyay sida ay ammaanka u sugayaan isla markaana geesinimada leh ee har iyo habeen ay qorraxda iyo dhaxanta u taagan yihiin isagoo sheegay inay badbaadinta nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed ay mar walba naftooda u hurayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu soo hadal qaaday in musuqmaasuqa dalka ka jira uu halkii ugu xumayd haatan marayo isla markaana dawladda federaalka Soomaaliya ay haatan qaadayso tallaabooyin dhowr ah oo arrintaasi ay kaga hortagayso waxaana madaxweynuhu uu sheegay in markii horeba dawladdan bilowgeedii ay ahayd la dagaalanka musuqmaasuqa haatanna dalku uu ku habsaday xaalad kale oo aad u xun oo ku aadan musuqmaasuqa isagoo madaxweynuhu tilmaamay in dagaalada iyo musuqmaasuqa ay yihiin waxyaabaha ugu daran ee dalka ku habsaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tilmaamay in qorshe u degsan dawladda Soomaaliya oo la dagaalanka musuqmaasuqa kolkii horena ay ku bilowdeen hay'atan qaadi doonaan isla markaana
mas-uuliyiin dhowra oo dowladda ka tirsan iyo kuwo kale oo aan ka tirsanaynba dowladdu ay haatan tallaabo sharci ah ka qaadi doonto si looga hortago musuqmaasuqa sida weyn ugu baahay qeybo ka mid ah Soomaaliya isla markaana haatan la tilmaamay in halkii ugu xumayd uu taagan yahay. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sidoo kale soo hadal qaaday arrimaha ku saabsan xaaladaha gobolada dalka ka jira ee fatahaadaha iyo roobabka waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda muslimiinta ay iska kaashadaan sidii dadkaasi garab loo siin lahaa waxaana uu tilmaamay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad dhaqankooda iyo diintooduba ay ku caddahay iscaawinta iyo isgarab istaaga. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa diiday inuu dalka soo galo ergeyga midowga Afrika uu dhawaan u soo magacaabay Soomaaliya. xog la helayo ayaa waxa ay sheegaysaa in wali dowladda federaalka Soomaaliya ay diidan tahay inuu dalka yimaado ergeyga dhawaan uu gudoomiyaha midowga Afrika uu soo magacaabay Soomaaliya in loo baahan yahay in ergeygan si weyn loo soo dhaweeyo. gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa waxa uu horay ugu gacan sayray isla markaana uu diiday dalab dowladda federaalka Soomaaliya oo ay u gudbisay taas oo ku aadanayd in laga laabto ergeyga cusub ee la soo magacaabay oo ah madaxweynihii hore ee wadanka Ghana John Mahama oo ay markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeysay in uu horay ugu lug lahaa musuqmaasuq isla markaana uu xiriir dhow la leeyahay dowladda wadanka Kenya taasina ay keeni karto inuu kala qaybiyo Soomaaliya. hase yeeshee warar lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda Soomaaliya ay qaadatay go'aan ah in ergeygaas uusan soo gelin isla markaana uu cagta soo dhigin deegaano ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho haddii midowga Afrika aanu ka laaban magacaabista uu dhawaan sameeyay. warqad qoraal oo uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq isla markaana loo diray gudoomiyaha guddiga midowga Afrika ayaa waxa markaasi lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay caddaysay in aysan taageero siin doonin John Mahama oo madaxweynihii hore ee wadanka Ghana oo saaxiib dhow la ah dowladda wadanka Kenya sida ay ku doodayaan mas'uuliyiinta ugu sareeyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay in haatan hanaan heshiis lagu wadayahay uu bilaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isla mar ahaantaasna 20ka bisha loo baahan yahay in ay shir isugu yimaadaan lagu dhamaynayo madmadowga iyo khilaafkii ka taagnaa arrimaha siyaasadda gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ee loo diray midowga Afrika ayaa waxa lagu sheegay in magacaabistan ay tahay mid jahwareerin karta siyaasadda Soomaaliya isla markaana howlaha doorashada ee haatan sida habsamida leh u socda ay carqaladeyn karto. waxaana dowladda federaalka Soomaaliya ay marnaba diiday inuu cagta soo dhigo ergeyga cusub ee midowga Afrika u soo magacaabay Soomaaliya qaybo ka mid ah deegaanada Soomaaliya iyadoo oo tilmaantay in ergeygan marnaba aysan aqbali doonin isla markaana uu dhowr jeer uu la soo shaqeeyay dowladda Kenya oo Soomaaliya ay xurguf siyaasadeed kala dhaxayso. maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ayaa walaac xoogan ka muujisay isku dhacyada ka soo cusboonaaday Falastiin iyo Israa'iil. dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada Fadwa bin Sauda ayaa waxa ay muujisay walaaca ay ka qaadeen dagaalka cusub ee ka bilowday Israa'iil iyo Falastiin. Fadwa bin Sauda ayaa tilmaantay in dagaalkan ay ka dhalan karaan xadgudubyo iyo xasuuq shacab waxaana ay ugu baaqday beesha caalamka in dadaal lagu bixiyo sidii loo joojin lahaa dagaalkan iyadoo intaas sii raacisay in xafiiskoodu uu la socdo waxyaabaha ka dhacaya gobolada kala duwan ee Falastiin. bin Sauda ayaa horay si rasmi ah uga codsatay maxkamadda in la furo galbaaritaan oo ku saabsan dambiyo dagaal oo la sheegay in Israa'iil ay ka geysatay dhulka Falastiin. dhanka kale wasiirka caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in tirada guud ee dhimashada tan iyo markii ay weeraradii ugu dambeeyay ay ka dhaceen dhulka Falastiin in ay ku dhinteen dad gaaraya 35 qofood oo ay ku jiraan 12 carruur ah in ka badan 233na ay waxyeello ka soo gaartay isla markaana weeraradaasi ay ku dhaawacmeen kuwaas oo ka dhacay daanta galbeed ee Gaza iyo Qudus. ciidanka Israa'iil ayaa sheegaya in ku dhawaad 1500 oo gantaal lagu tuuray dhanka Gaza iyagoo meelo kala duwan uga dhacay Israa'iil iyagoo sidoo kale ciidamada Israa'iil ay sheegeen inay xoojinayaan amniga dhanka xuduudda dhulka bari ee ay haystaan. gudaana daawadayaal warkii aad kala socoteen Warshada TV wanaga intaa nabadgelyo.